marka diinteenu qatliga iyo dilka say u adkaysi wad arkaysan quraanka meeqaayad baan akhrinay hadda wax kama khudbada waxaan ku soo qaadanay quraan ma akhriyay oo hadda khudbooyinkii waxay u badan yihiin quraan sababtu waxay tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam khudbooyinkiisa wad aragteeno khudbatu hajjatul wadaa iyo khudbatul istisqaa iyo khudbatul ciidayn iyo munaasabada waa la gartay laakiin jumca kasta uu khudbayn jiray awal khudbatul jum'atu nabiyya away xagayta allah khudbadiisu waxay quraanka markaas waxa maqlaysaa saxaabi dhaaya ana suuratu qaaf waxaan ka xifdiyay nabiga oo minbarka ku akhrinaya khudbada jumcada suugu celinayay wajaa sakratul maut bil haqq suuratu qaaf oo waxaan ka bartay khudbada leh marka khudbooyinkiisu waxay ahaayeen quraankaas marka khudbooyinkeenu waa inay quraanka noqdaan maxay quraanku wuxuu dhaafay ma jirto marka hadda in la isdilo ma banaan tahay ma banaano dad muslima inay xaq darro isu dilaan ma banaano maxaa u daliila meeqa quraan akhrin wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an kama hadaytay waa wax kale ahkaam baana ka taala in diyo la bixiyo qofka soo diyo bixiyay ayaa hadana waxa laga rabaa qofkii wax dila inuu 2 bilood oo soona oo israacsan oo soomo si qofku isaga ilaaliyo inuu wax dilo hadda diyadii uu bixiyay waxa lagu heshiiyay diyada in la bixiyo diyo bixintu waa shay dadkii wax laga dilay ayaa diyada la siiyay laakiin ilaahigii yiri waxyaan la dilin ee amarkiisii la jabiyay ee wax la dilay dambigiisa xagee laga keenaya si taasna lagaaga dhaafo shahrayni mutataabi'ayni tawbatan min Allah taas ilaahay baa iska leh 2 bilood ilaahay ka rabaa marka qofkii 2 bilood aan soomi karin lama soomi kare hadda waxa isku dili waay naftaada u nax waa kamaaga haduu ka siyayna kaas asawiya isweydiinaya ko waxa la yiri taariku salaad ma la siinayaa zaka ma la siinaa taariku salaadka markaas sheekhu wuxuu kitaabu salaati iyo kitaabu zakati yaa horeeyo horta waxa horeeyo kitaabu salaati kadib kitaabu zakati la soo gaaraa wuxuu in taariku salaad kitaabu zakati maxaa soo gaarsiiyay maxaa hore loogu soo dili waay goormaan ku kitaabu zakati maxaa soo gaarsiiyay marka hore ilaan kitaabu salaati lagu soo dilay oo leeyahay ninkaasi waa taariku salaad baa liidaada marka hadda kii kamaaga ahaa ayaa waxa la intaas oo adayga laga keenay diyo 100 neef oo geelaha laga bixiyo markii la bixiyo kadib kii dilay 100 neef qabiilka iyo qaraabada bixisay qofkii wax sameeyay waa inuu dareemo xanuunka kama bayna haydo baabuur uu waday baa si kama qof ugu dhuftay muuna arkaynin fi nihaaya soo baa waday baabuurka marka inuu dareemo ayaa laga rabaa marka maxaa lagu sameeynaa diyadii hadii laga dhiibo 2 bilood oo soon ah laga rabaa marka labadaas bilood sooma markaas ka bacdi amruhu ila Allah aakhira la sugu tagaaya ki toos sooma asaga oo kas oo kama aan ahayn ilaahay muxuu yiri waman yaqtul mu'mina muta'ammidan qofkii kas wax u dila mu'min gardarro qofkii u dila meeqaal isu daba dhigay fajazaa'uhu جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هي وإيجا فكتاي وأنا كس ويأهد لأن كس وحلو قدر موجتهد قلبك واستعمالي وحلو قد أنت أي تهاي النية ده أساس أي تهاي مركورة وحالي هذه محابك هو سودوي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا اسكهوا بصدق قفك وخلد منه اسكجرا آية كلام كان آخرين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وعباد الرحمن وحاكم الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني انت سعودان وآية القرآن مركا الحمد لله نجا الصومالي هدانا هاي إنك سو وقت دير أي أنتو إنو سعودتي لكن هدانا أوجاد الدين تان وحوين بينو ترتي دتك وحا كلا بدباديي أو آدي يعني أردمي إلا إسلايو ودينta islaamka waxaad arkaysaa kuwa kristaanka ah haday fursad yar isu helaan oo dawladoodu waxoogaa yar booliska oo dabacsanaan oo ku dhaco way isboobsiinayaan markaas muddo kooban waxay iska dilayaan ever way isdhameynayaan bal waxa isku sameeyeen fiiri Burundi iyo Rwanda iyo markay isleeynaayeen 3 bilood gudahood ayaa imise iska dileen inaga hal qof iyo 2 qof iyo waxoogaa iyo sidaas oo kale laakiin ay waxay sameeyeen kaniisadan oo 800 kun qof ay ku jirto yaa dhinacayntii laga istaaga dab lagu qabtay dadka dhan way dhinteen inaga saasoo kale yani qof dilaaya iyo mid iyo 2 iyo 3 inaga hadana waxay Soomaalidan qabayl hadii la soo laaya xataa waan isu egnaa yaa ina kala garanaayo hadba meeshii markaas dhalinyarada waxay dhan moogtay meeshaas ay ka shidan tahay Soomaa hadba meeshii ay ka shidan tahay oo qabiilkii markaas meeshii u badan yahay oo dadka yani kuwan kala dilaaya hadii la joogo kuwan ay u shidan tahay baa qabiilkooda la sheegtaa bis warni wadan saaxiibanahay reerkiina ii sheeg maalmaha maxalladina idin bis qabiilku ku qoraa bis in hebel hal bis wayna soo martay sagaashimeeyadii markii qabiilka la suuleen baabuur dhan oo socda intii la isteejo waxa la soo daga qabiilkiina sheega qabiilka maxaa quraan miya xifdisan tahay adig kii wax raadinay markii albaabkiisa xulay qof uu weydiina adiyaa tahay meesha aaga wala yaqaan moogtay dadka markaas haysto oo qoriga haysto oo saasa ka uu yahay leeyahay la sheegana
أنا غير كاسانا هي صعب ما أنا هدوك هذا دنك كلا سومالي وأبتي وعذير وهبلو أنت إسرائيل إسها إسرائيل لكن أنت كلا والس بتبادينا يا أبتي سو أذير كيسو هذا حاجة ورنا وحنسكوا سنة سياسة ديو كرسي كليرينا إنه وحنرون ما دتبنا سوف هم سنة شيء كذا دتنا وحوقاتين نوحي سياسة الإسكولينا ريبل عند دمينا ريبل يا دمين كذا ريبل لما دمين كذا كان عارتين ما أنتوا دعاون أنت الله بوفي قريه دريسال الحرا مركل السيسي حنا وين دمات الله تو عجيق ماشان كسول أنت كان على دمين وين بناء على دمين كذا marka maagla la isugu dambaaba maahina meeshaan cid la dhameynaa ma jirto cid meel socotana ma jirto qof waqtigiisu dhamaaday baan la dilayaa ma qof waqti u dhiman yahay cid dili karta ma jirto qof waqtigiisu dhiman yahay lama dili karo qof waqtigiisu dhamaadayna ma joogaayo mar haday saas tahay adigu gacantaada ilaasho dambi ha isku galin taada un ka soo bax hadhow yaan lagu raran waxa kale marka dil iyo wixii ku saabsan saas aan dhahnay mid kale waxaan soo qaadanay adduunka maanta aynu joogno siraac waxa ka jira xaq iyo baadil yaa gardaran yaa diidan hortay la wada noolaado Soomaaliya xukuumada waxay dhaheen Arab waxay dhaheen intay ku nabto ayay nabiga kaaga hormartaa leen af Carabiga taqaana moogta Arabtu Arab intay ku nabtay nabiga kaaga hormartaa dhaheen gaaladu intayna nabaan oo dulmi oo dhan ay sameeyaan hadana warbaahinta haystaano waxay iska dhigayaan kuwa meel ay istaagaan la in ayaga yihiin waxa la kari laayahay ee laga noolaan laayahay inuu muslimka yahay yaa yiri sidaas muslimku wuxuu ogol yahay in la wada noolaado waxaan ogolayn la wada noolaa waa gaalada quraanku wuxuu leeyahay waqala alladheena kafaru lirrusulihim waxay ku dhaheen lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina ama waad baxaysiin oo dhulka xaq uma leeyahay ku noolaataan ama sida anaga aan rabnay la yeelaysiin qala awlaw kunna kaarihin lanuhlikanna adh-dhalimin fa waxa ilayhim rabbuka lanuhlikanna adh-dhalimin yani xaqu ya baadilku saaseen ya soo bilaabay gardarada waxa soo bilaabay gaalada kaana naasu ummatan waahidatan dadku waxay ahaayeen nabi aadam markii laga imaaday dad kaliya oo ilaahay caabuda oo rabbigooda yaqaan oo ummatan waahida qaar baa qalloocday oo sanam caabuday fab'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundhirin ilaahay baa soo saaray rasuul u sheegaysa wadada aad qaadeen way khaldan tahay ta ilaahay soo aado oo jidka soo mara way diiday markay soo maraan markaas ay la dagaaleen nabi nuux maxay ku sameeyeen nabiga ugu horeeyay ahaa waxay dhaheen hadaa iska dayn way limtantay ya nuux la takunana min almarjuumin dhagaxa lagu dilaaya rabbi inni maqlubun fantasir ilaahu iisoo gargaar ayuu ku ducaysay marka saasay u soo socotay ilaahay haduu doono dadkoo dhan hal wadu wada qaadsiin laha laakiin muuna yeeline walaw shaa Allah la ja'alakum ummatan waahidatan walakin yudillu man yashaa wa yahdi man yashaa wa la tus'aluna amma kuntum ta'malun يعني قفكوا ربنا إلهي ودومين قفكوا ربنا إلهي وبعدين آخرين والذين ويدين دون واحد سمينيسان مرك هذا ما واحد كجرتا كوا إلهي وهنونيي مش كوا ظالمين تاع ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما له من ولي ولا نصير ساسا لسقر بسعودا إلهي دين تسوقر جاري كراسو إنك ينودرين لكن إنه ينودروا إلهي حور ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذكم امتحانا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا والذكم امتحانا ددنا حق إنه هرجل يجعلين ددنا باطلكم إنه هرجل يجعلين كوي باطلكم اللي سو تاجين كوي حق أي عبصنا وحيلين باطل كان ما لأن باطلك وحال موت هذه باطل كان أنا لا هلين حق أيو اسمه ذا قف باطل وصل لين هذا يكون هذا إنه أسجل ليه هي أيو اسمه ذا واتيدا كان لينه الصومالي هنا دول كان سلوك على قيب صدي استعمار كأكسونتين سلوك على يالي دول بدنا الصومالي أيا وحوق دري ودمنا كله كينيا يا وحوق دري هذا كينيا وحوقا سو حين كمان نحتاج لكينيا وبده كسابسن بده واحد سوق عيال جرين العيال وحالي الموت هي انتو سن دب قباء وسن اونا قيلين ام وسن هلين دف قباء يا قيليا هذا صومالي يا دبنا اهيد oo dhulkeedii la haystay ma ba ayna qaylin xataa warbada meel ay dacwo loo gudbiyay waxa libadaas ay Kenya ugu haysataa bal beesha caalamkuna yara fiiriso هذا قدومي أو قصر هي محكمة الدون كانوا وابنين سومالي عبد القوي بالي هذا هذين كينيا هذين الديدين ويندهن سومالي ذو قربنا هذا المهم وحي الدون كو قرقرتي هذا دون تبين هذا لجيفيانا بنانتا هذا سير ربنا يقول لجايين تي أي ربنا نفتر كذا وحي بلتاس وحوجا عن كور السجن أيضا تي بلقى ور السجن ولا كينين با أي سوق سبحانه بس سفير كي نقاط ومحاجرة وحيابها مركي الشدال كالباباري ما أنا عن سكوها السنة شيءتين إن الشارع كباريسان كوي بارباري وحيدين حاجة اسمه بآدم لين عاس يقبل الله دحلا من آدم حاجة كسماية حاجة هذا ما بقى أن آدم إلا ما بقول الصعوبة وحواي
inuu qayliyo oo horay wuxuu rabaa u sii gos iyo horayba malaha heshiisyo uga galay oo shidaallo uga baaranayo wax fiican meesha uu ku arkayo in loogu imaado ayuu ka cabsanaya hal moogtahay kaada almuriibu an yaquula khuduni ayaa carabtu dhahan waxa ninka shakisan wuxuu ku siganayaa inuu dhaho dadka ag maraya war ay qabta tuug baan ahay ilaa iska shakisay asagoo inuu iska shifaayo ku siganaya kaada almuriibu an yaquula khuduni afmaameen waxa la yiraahdaa weel eber ilaa wal isku og islagu weerayaan weelka eberka waxba ku jirin qawmaanta loo saqa hawa galeys iyo nin wax isku ogba way isla qayliyaan marka Kenya waxay isku ogtaa inay dhul islaameed haysato ayay isku ogtahay marka waxay la qayliyayso yaan lagu soo gaarin ayay u qaylinaysaa laakiin waa goorta ay saasiyay waxay tahay baadida inaga maqnayd ee agteeda taalay ayaa say inoo wadeen waa iska iloownay dhulkan ay inaga haysatay ee Kenya ka tirsan NFD la yiraahdo ee Soomaalidu ay leedahay ee dadka jooga ay Soomaalida yihiin oo ayaguna ay og yihiin hadda Kenya qofkii taga markii dhikaarka loo qorayo warqadan ayaga wadanka lagu joogo qabiil ay ku qortaan tribe markii la soo gaaro qabiilkaaga markii la soo gaaro ayagu qabiilkooda waxay qoranayaan kuwa Kukuyo iyo Masai iyo waxa qorteen laakiin markii Soomaalida la soo gaaro tribe markii la soo gaaro Soomaali lay qorayaan innaga la iska qaadqaadayna moogi ummadaha kale hal qabiilan u nahay oo Soomaali la dhaho marka dhulkan Soomaali ay qorayso oo ayada ay qorayso inay Soomaali leedahay taas waxay u malaysay in ayada iska leedahay yaa siiyay Ingiriiska siiyay Ingiriisku mas'ala markuu siinayo ma uu gumaysanay meeshii dadku ay xor ka qaadan lahaayeen yaa wuxuu anu waan baxayaa way igu buuqeen way igu kaceen way ila dagaaleen ma sii joogi karee Kenya kaalay kastaan adaan abaalmarin kaaga dhig adoo qaado way qaadatay baadi haday agtaada ku dahdo waxa la yiri inaad leedahay ismoodaa hadii sac uu ku soo darsamo loodaada oo wax ka wata aweys oo sanad 2 sano 3 sano war sacbaan hayaa yaa ark war hal daab waqtiga xataa ku dhalay yaa sac noocaas yaa arkay yaa yaqaana cid iska leh hadii la waayo wax sheegta maxal dhahayaa baadi agtaada ku dahday inaad leedahay baad ismoodaa adaaba iska leh ba ku darsanay Kenya marka baadi ayaa agtaada ku dahday kii kas way qaadatay kisti yaraydii inoo soo hartay ayada dhinaca laga soo jarjaray ee lambar 7 la iga dhigay sidaan wadan weyn u ahaan jirnay lambar 7 kolba dhinac ay inaga soo galayaan mar caloosha inaga soo galayaan mar dhinac kale inaga soo galayaan inta yar bay inagu haysaan taasna waxa inaga keenay inaga saanahay ina arkeen waa Soomaalideena laakiin Soomaali way jiratay sax laakiin waxa adduunku isku waafaqsan Soomaali ma ina dhimanin carabta walaalaheena waxay ka yaaban yihiin nashaadka Soomaalida dalkooda sida uu horumar u sameeynayo iyo sida ay wax u dhisanayaan ganacsigooda isku xirnaantooda iska faalaqaadkooda isu naxariisashadooda iyo markay banaanka u baxeen meelaha ay tageen sida ay yeeleen wadaad Mareykanka ka imaada daraadii sheekeynay wuxuu Mareykanka dhexdiisa magaalo inta ayna Soomaalidu tagin yaani say u weyn tahay malaha diyaaradu waxay u kala socdaan meelaha qaar kood Mareykanka gobolada 9 saacadood waa diyaarad 9 saacadood soconaysa innaga Soomaalida dhexdeeda meeqa diyaaradan u kala socotaa inta la ka baxnay bay dhawaan diratay nus saac waa la degay ayagu 9 saac ay soconayaan say u kala fog yihiin leh wuxuu yiri magaalada aan deganahay Soomaalidu intayna imaanin wax masaajid ku yaalay male haddana degmo kasta masaajid ku yaala Soomaalida markay tageen masaajid dhisid marka dadkan Soomaalida si kale ayay dhibaato haystaa oo qabyaalada iyo waxaan madaxa la isugu dhuftay ku xiyeen maahina diin jacaylka iyo walaaltinimada iyo sida ay nashaad u leeyihiin ummadihii kale ya maanta waxay noqdeen hoggaanayaan u noqonay marka arimahaasna waa ka hadlayno adduunku sida rabtidmooda noqonayo hal wada ma qaadayo oo Ilaahay baa wuxuu yiri haduu Ilaahay doono la jacala an-naasa ummatan waahidatan hal ayuu ka dhigla mar hadaan hal ummatan waahidatan noqonayn oo laba ummad la kala noqonayo ummad xaq wada iyo ummad baadil wada ayaa kala jira marka adigu ummadda oo xaq wada kuwaas qayb ka noqo xaq ku sabir ku dadaal kuwa baadilka wadana baadilkooda waxay rabaan inay saas ay ku wadaan marka marna ha sugin adiga baadilka intuu raali ka ahaado inuu ku yiraahdo alu xaq baatiin diintiina ku dhaqma saa doontaan isu xukuma shariicadiina qaata marna ma suurtoobayso adduunka waxba la isma siiye waa la kala qaataa un cidii waxeeda marka la qaadan karo waa la qaadan cidii waxeeda jiraada ma lama qaadan karana waxeeda waa loo deyn xaq qofkii laha uu daba socdana ma dayacma ayaa la yiri laakiin qof xaqii laha uu iska dhaafay cid u keenayso xaqana ka maqan kale xaqan qaadaysa ma jirto marka wadankeena aan ilaashano dhexdeedana aan walaalowno ummadeena aan khayrka kala shaqeyno iyo wanaaga saasi khudbada ku saabsan marka dilka iyo dhibaatada uu leeyahay diinteenu meel fog ayay geysay dadka isku xirnaanshahooda ahlu xaq ee walaalaha aan muuminiinta ana inay isku xirmaan ayaa la amray marka sidaas inaan yeelno insha Allah taala